ujeedada laga leeyahay waxa weeye cadaaladda Soomaaliya meeshii ay taagneed shalay ma taagna. Waa ay isbedeshay, waxay u socotaa in lagu dhaqmo xeerarka, in la hirgeliyo sareynta sharciga oo uu dastuurka u horeeyo. Dhammaan xeerarka dalka uu leeyahay oo nooc kasta ahna in la hirgeliyo. Sidaasaa waxaa lagu gaari karaa ujeedo kasta oo waddankan u baahan yahay in la gaaro, oo ay ku jirto dhaqaalaha inuu hagaago, maalgashi in la helo, in amnigu hagaago. Waxaa lagu gaari karaa in dad tababaran waxa ay sameynayaan aad u yaqaana, tallaabooyinka ay qaadayaan yaqaana, fahansan wadooyinka iyo wadiiqooyinka ay u marayaan markay baaris ay sameynayaan, markay ay dacwada oogayaan, markay judgmentiga xukunka soo saarayaan, markuu qareenku uu difaaca joogo. waxaasoo dhan waxa weeye waxa lagu gaari karaa waxa weeye aqoonta iyo tayada iyo xirfadda qof kasta uu leeyahay oo in ka mid ah inay meeshii u sarreysay ay joogto. taasaa waxaan ku gaari karnaa ujeedooyinka aan wada leenahay dhammaantood. Marka maxaa ku baranaysaa inta halkan aad joogtid oo ah waxaa jira eedayooyin aad u tiro badan oo loo baahan yahay tayadooda karko in loo qaado. waxaa ka mid ah oo aad aan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto xoogana tababarayaashu ay saaraan witness examinationka, qaabka baarista loogu sameeyo, examinationka loogu sameeyo qofka witnesska ah. xeerarkeena qaabab kala duwan baa jira. witnesskana waa waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la saaro. Marka tababarku wuxuu ka kooban yahay 5 beri buu soconayaa, qaybo kala duwan buu leeyahay, waxyaalo kala duwan baa inay tababarayaa. waxaan lagu tababarayana waxa weeye oo fahmaysaa xeerarka waddanka. maalinba xeer baa soo baxaya, waddankuna waa isbedelaya. qof kasta oo ku dhex jira sectorkan cadaaladda la xiriirsanna waxaa la rabaa aqoontiisa inuu sare u qaado, xirfadiisa inuu sare u qaado, si uu la socdo traaga macnaha gaariga la saaran yahay ee cadaaladdu hore u socdaa. meesha marka aad taagneed haddaad taagnaatid xirfadaada, hufnaantaada, aqoontaada aada waxba ka bedelin, ma filay inaad gaari kartid meeshaa rabtid. waxaa idiin tusaaleynayaa marka maxkamaduhu iyo cadaaladdu isbedelka ku dhacay waxa weeye keisaskii musuqmaasuqa ahaa ee la xukumay hadda qaybtoodna ay ku jiraan processkii labaad oo maxkamadaha racfaanka ay yaalaan, waxay keentay in waddanka sumcaddiisa, sharaftiisa iyo Soomaaliya la dagaalanka musuqu inuu gaaro dowlado kaleeto, oo Soomaaliya siyaasiyiin dal kaleeto madaxweynayaashooda ay kula taliyaan inay talo weydiistaan la dagaalanka musuqmaasuqa. cidda howshaasoo dhan qabatay oo magacaa dalka usoo jiiday waa inta halkan fadhida. inta halkan fadhida waxa weeye xirfadooda maanta meesha ay maraysa haddii sare loo sii qaadana waxaad dareemi kartaa Transparency International every year reportka ay soo saarto hal meel buu taagan yahay. hal meel buu taagan, isma bedelo. sababtu uu isku bedeleen ma aha ayaga reportka in ayaga dad la korrupti gareeyo lacag la siiyo Soomaaliya halkaa geliya la dhaho. mushkiladda waddanka ka jirta iyo meesha aan marayno, hufnaan la-aanteena, dhibaatada waddanka ka jirta iyo qaabka wax loo sameynayo iyo documentationka la khaldayo oo nooc kasta leh baa maalinba ugu jirnaa. marka waxaan rajeynayaa dadkiina halka fadhiya oo tababarka loo furay oo qaybtooda hadda tababaro kaleeto ay ka soo baxeen oo garsoorka loo soo tababaray, kuwana tababaro dibadda u aadeen oo tiro badan. waxaan rabaa qof kasta oo ka mid a inuu xirfadiisa sare u qaado si magaca iyo sumcadda waddanka aan leenahay oo ay maraysa macnaha in la weydiiso siyaasiyiintu ay ku doodaan hadalhaynta uu galo, in madaxweynaha lagula taliyo hala weydiisto talo. waxa keenaya waxa waa inta adinku aad ka shaqaysan weeye. waxaan rabaa marka qof kasta oo meeshaan fadhiya inaan ku wada dadaalno cadaaladda ayadoo aan qofna la dulminayn. la dulminayn cadaaladda in lagu dadaalo, adiguna aadan noqonin qof iibsami kara. maalinkaa noqotid
oo badeecad aad tahay inta lacag lagu siiyo lagu iibsan karo markaa noqotid maalinkaas taraaga adaa iska tuuray. marka waxaan rabaa qof kastoo ka mid a inuu hadalkaa meel ku qorto. qofka shakhsiyadda cadaaladda ku dhex jirta malaayiin door haddii la siiyo ma iibsami karo. haddii adi lacag ku goyso, lacag haddii ku goyso oo go-aamadaada cadaaladda gaaraysa ee lacag goyso, waxaad dareemaysaa in aadan qiimo ku dhex lahayn garsoorka iyo meesha ka dhex shaqeynaysa. waxaan rabaa maskaxda taa in lagu wada hayo, qof kastana uu taa uu og yahay arrimaha la xiriirsan garsoorka, miisaaniyadiisa iyo wax ka bedelkiisa iyo wax loo baahan yahay. waa wax la rabo maamulka sare ee garsoorka inuu ka shaqeeyo, wayna socotaa shaqadeeda. laakiin adigu inta laga gaaray ujeedada Soomaaliya meel baa laga soo bilaabo, maalinba meel bay maraysaa. inta ujeedada laga gaarayo ha noqonin qof iibsami kara. halkaa meel ku qoro. waxaan rabaa tababarkaas inaad aada uga faa'iidaysataan. waqtiga loogu talagalay inuu qof kasta uu taagan yahay, ujeedada uu leeyahay tababarka si fiican loo fahmo. wixii maanta aad ka faa'iidaysatayna beri practical ayadoo ah in maxkamadaha doodaada iyo dacwo oogistaada iyo judgmentiga axkaamta aad qoraysid inay beri wax iska bedelaan, oo tababarku aan arko inuu effective noqday, qiimeyntiisana ay ka muuqato doodahaaga haddaad qareen tahay, xeerlaalihi haddaad tahay dacwo oogistaada, garsoore haddaad tahay xukunada saa u qoraysid iyo go-aamada qaraaraadka iyo awaamirta kaa soo baxaysa noqonayso, booliis haddaad tahay saa wax u baaraysid. dhammaan waxaasoo dhan wax loo baahan yahay inay wax iska bedelaan. shaqada aa haysaan waa shaqo u baahan hufnaan iyo ilaalin. ogaada hufnaantaadu iyo inaan lagu beecin karin waa wax aan gorgortan geli karin. cabsi gelin qof xafiis dowladeed jooga in qof kaleeto uu cabsi geliyo waa waxaan la ogoleen. cagajugleen baa ku imaan karta, waa lagu cabsi gelinaya. adi waxaa lagaa rabaa ama sharciga waafaq oo ku dhaqan oo sida xalaasha ugu dhaqan, ama cidna kuma qasbeysee meesha inaad joogto cid ku qasbeysa ma lehe. shaatigaa ka dhowro, iskaga sector kaloo safe aad. laakiin baaraan ahay, dacwo ooga ahay, garsoora ahay, waxaan rabaa tallaabooyinkaasaan qaadayaa, haddana cabsi baa ugu jirta, naftaan hamar bay baxaysaa. waxa garsoorka ka jira iyo waxa loo baahan inaan la gaarin waa la ogyahay. nin walba oo meeshan jooga oo garsoorka ka tirsanna ujeedadii meesha xafiiska uu joogo dowladda oo dhan marka la isku daro baahiyaheeda nin walba baahi baa ka maqan. waa u wada soconnaa. tan markay toostaa waxa u baahanna wada gaaraynaa. waxaan idiin rajaynayaa inaan tababarkaas si fiican looga faa'iidaysto.